fiirinta aad fiirinaysid taleefankaada maalintoo idil iyo habeenka oo dhan waxay indhahaada ku sababayaan daal aad u fara badan. taasi waxaa sii dheer iftiinka ka soo baxaya taleefankaada wuxuu aad u adkay doonaa hurdadaada oo waxaa aad u adkaa doontaa inaad hurdid. haddaba Android wuxuu leeyahay barnaamij loo yaqaan Night Light. haddaba Samsung ama taleefanada Samsung ma lahan barnaamijkaasi. sidaa darteed muuqaalkan ayaan jecelahay in aan ku badbaadiyo indhahaaga oo aan kuu soo gudbiyo qodobo aan is leeyahay waxay yareyn karaan dhibaatada kaga imaan karta iftiinka ka imaanaya taleefankaaga oo waxaan kuu soo gudbi doonaa sirar ama barnaamijyo ku yareynaya ama kaa badbaadinaya in iftiinka taleefankaada ka soo baxaya indhahaada wax u saameeyaan. magacaygu waa Cabdi Daahir waxaad ku soo dhawaataan shabakada Sud Grooves. haddii aad channel ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa fadlan inaad subscribe ku samaysid sidoo kale inaad like saartid muuqaalka. haddii aad ku cusub tahay page-keena Facebook sidoo kale like saar. shartana waa waxa kaliya aan dhammaantiin ku wada faa'iido karno oo walaalkaad wax u gaarsiin kartid. Okay, daawadayaal casharka ayaa si toos u sii galeynaa. haddaba barnaamijka romaanta inaan idin soo gudbiyo oo yareynaya iftiinka dhibaatada kaga imaanaysa yacni taleefankaaga waxaa loo yaqaanaa blue light filter. barnaamijkan waxaad keli doontaa meesha kala soo degaysid qaybta hoose ee muuqaalka ama qaybta description-ka loo yaqaan. sidoo kale waxaad ka heli kartaa Play Store-ka iyo meelaha kale oo barnaamijyada laga soo dejiyo. haddaba barnaamijku waa barnaamij caan ah waad ku dhufanaysaa ugu horeyn sida tan ayaa kuu soo bixi doonta kadibna calaamadaas close-ka ayaa taabanaysaa. marka intaad samaysid kadib waxaad taabanaysaa halkaan u jeedid calaamada power-ka ah ayaad riixaysaa. markaad riixdid kadib barnaamijku waxaa laga yaabaa inuu permission ku weydiiyo oo allow permission ayaa markaas leedahay. marka intaad samaysid wuxuu ku keeni doonaa halkaan saad u jeedid isla marhaantiiba waa la bedelay iftiinka taleefankeena saa aragtidba hore ayuu ka bedelay. marka noocyo badan oo iftiin ayaa saari kartaa. tusaale ahaan waxaad dooran kartaa iftiin sidan yacni noocan camal oo indhahaada laga yaabaa inay uroon yihiin. sidoo kale waxaad dooran kartaa sidanaad dooran kartaa iftiin noocan oo yani dooran kartaa mid sidan ayaa dooran kartaa. intaas nooc ayuu leeyahay waa color temperature-ka aad dooranaysid mid walba cabir gooni ayuu leeyahay. okay marka aan ahaan colorkan ayaa jeclahay oo night light-ka ah yacni iftiinka habeenka kale iyo saarsi indhihii loo yareeyo. halkan waxaa ka hooseeya loo yaqaan intensity oo ah yacni halka aad ka yareynaysa cabirkaaga halkuu gaarayo. tusaale ahaan haddii aan badiyo waxaa aad u yaraanaya iftiinka ka imaanaya taleefankeyga. haddii aan yareeyana taleefanka wuxuu ku laabanayaa iftiinkiisa hore. marka ani ahaan waxaan jeclahay inaan geeyo halka 30 oo ah meesha ugu wanaagsan. sidoo kale halkan waxaad ka aragtaa waxyaabo kale screen damkan haddii aad riixdid oo ujeedaa screenka dhan ayaa ever noqonayo. timer ayaa saari kartaa waqti ayaa ku xiri kartaa oo ilaa waqtigaas ha ii ahaado iftiinkaas. markuu waqtigaas gaarana wuxuu jooji doonaa iftiinkaas uu kuu soo gudbinayo oo yacni wuu kaa xiri doonaa iftiinkaas oo taleefanka ayuu ku laaban doonaa. marka adiga uu badnaan waxaa u baahan tahay iftiinkan habeenkii soo xilliga habeenkii ayaa ku programinaysaa on inaad tirahdid saacad hebel ka bilaaw saacad hebelna off dheh ayaa leedahay. okay tusaale ahaan saacadda 1 saac iga bilaaw ilaa 2 saac fiidnimo ugu ekay ayaa taaban kartaa. okay marka waxyaabo badan ayuu leeyahay. marka barnaamijkaas qaabkan ayaa u isticmaalaysaa daawadayaal. sidoo kale qaybtan kore u jeedid waa halka mataqaanaa aad on ka dhigaysid. tusaale ahaan haddii off aad dhaho taleefankii wuxuu ku soo laabanayaa sidii hore. haddii on dhahona wuxuu ku soo laabanayaa sidii iftiinka la yareynayo oo habeenkii indhahii u fiicnaan lahaa. marka barnaamijkan waa barnaamij xaqiiqi cajiib ah. haddii aad gudihiisa usii geshid oo ama update aad u dirtid yacni waxaa laga yaabaa in uu barnaamij kale oo ka casrisan uu ku keeno. marka waxaan rajeynayaa inaad barnaamijka aad ku xiiso badan aad ka faa'iidi doontaan. okay daawadayaal waxaa jeclaa muuqaalka aad ku xiiso badan inaad ka hesheen fadlan haddii aad channel ku cusub tahay subscribe ku samee sidoo kale like saar muuqaalka page-kan haddaad ku cusub tahay like ku samee muuqaalkan inaad share garaysid waa wax kaliya walaalka aad ku badbaadi karta. maxaa yeelay waxaa laga yaabaa walaalkaaba inuu taleefanka aad u xiiseeyo habeen iyo maalin buu ku dhagan yahay. si aad indhihiisa uga naxdid fadlan muuqaalkan ula wadaag oo qaybta commentiga ugu yeer. waad ku mahadsantihiin mar labaad daawashada daawateen muuqaalka waani waa Cabdi Daahir oo leh muuqaal kale aad u xiiso badan. bye bye.